leelahay bulsho weyn reer Ethiopia gaar ahaan bulshada ku dhaqan dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia bagaad nabad ku dheen sanad guuradii afraad ee ka soo wareegtay aasaaska dhagax dhiga webiga weyn ee Abay bagaad nabad ku gaadheen waxaa xaruntani dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia magaalada Jigjiga si ballaaran looga xusay munaasabada sanad guurada afraad ee ka soo wareegtay aasaaskii dhagax dhiga dhismaha biyo xidheenka webiga weyn ee Abay waxaana nooga qayb galay munaasabadaasi oo faalada warkan inooga soo diyaariyay wariyeena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata waxaa laga joogaa muddo 4 sano markii uu dhagax dhigay ra'iisul wasaarihii hore ee aragtida dheeraa mudan Malla Zanaawi mashruuca biyo xidheenka webiga Abay mashruucan uu yahay mid waxtar weyn u leh bulshaweynta ku dhaqan dalkan Itoobiya maadaama uu yahay mid la rabo inuu wax weyn ka bedelo kobaca dhaqaalaha dalka isla markaana uu dalku ku higsanayo kamid noqoshada wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay mashruucan webiga Abayna laga dhalin doono quwad koronto oo dhan 6,000 oo megawatt iyadoo waqti xaadirkan uu marayo mashruucu 42% mashruucan ay si wada jir uga qayb qaateen hirgelintiisa muwaadiniinta u dhalatay dalkan Ethiopia ee iyagu ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibadiisa haday ahaan lahayd qurba joog iyo qaran joogba oo ay iibsadeen taageerada maaliyadeed ee bondiga webiga Abay hadaba si loo hirgeliyo isla markaana loo joogteeyo taageerada iibsiga bondiga lacageed ee webiga Abay ee lagu xaqiijinayo dhameystirka dhismaha biyo xidheenka webiga Abay ayaa waxa dhammaan dalka iyo deegaanada uu ka kooban yahayba ka dhacday munaasabad lagu maamuusayo sanad guurada afraad ee ka soo wareegatay dhagax dhigii dhismaha biyo xidheenka webiga Abay ayaa waxa sidoo kale lagu qabtay xaruntani deegaanka Soomaalida Ethiopia ee magaalada Jigjiga munaasabad lagu maamuusay sanad guuradii afraad ee ka soo wareegatay dhagax dhigii dhismaha biyo xidheenka webiga Abay iyadoo munaasabadan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ugu horeeyo kusimaha madaxweynaha ahna maareeyaha wakaalada dakhliga dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Axmed Maxamed Shukri mas'uuliyiinta xafiisyada heer deegaan shaqaalaha dawladda odayaasha waxgaradka ah culimo u diinka dhalinyarada haweenka ardayda wax ka barata dugsiyada maamulka magaalada Jigjiga iyo kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka oo iyagu ku soo bandhigay munaasabadani heese iyo dhaantooyin ka turjumayay taageerada ballaaran ay u hayaan webiga Abay waxaana ugu horeyntii munaasabadani ka hadlay kusimaha madaxweynaha ahna maareeyaha wakaalada dakhliga dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Axmed Maxamed Shukri oo tilmaamay ahmiyadda ay maalintan leedahay sidoo kalena ka warbixiyay kaalinta ballaaran ay ka soo qaateen bulshada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mashruuca webiga Abay kuna booriyay sidii loo sii laban laabi lahaa taageerada webiga Abay maanta waa maalin taariikhi ah waxa sanadkiisii afraad gaadhay webiga weyn ee Abay maalinka dhagax la dhigay mudanayaal iyo marwooyin shacabka dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia wuxuu qayb libax ka soo qaatay iibsashada bondiga weyn ee Abay sidaa darteed dhismaha biyo xidheenka Abay wuxuu qorshe ka yahay ama muhiim ka yahay qorshaha dalku uu kaga mid noqon hayo wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay sidaa darteed waxa laga maarmaan ah inaan guntiga ama aan dhexda iskaga xidhno oo qayb libax ka qaadano mudanayaal iyo marwooyin ugu dambeyn waxaan shacabka dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia dal iyo dibad ku dhaqan ugu baaqi lahaa in ay si laba jibaaraan dadaalkii ay ka wadeen iibsiga ama ka qayb qaadashada webiga weyn ee Abay sidii aan u bilownay baan u dhameystiraynaa waad mahadsantiin waxa iyaguna ka hadlay munaasabadani sanad guuradii afraad ee ka soo wareegatay dhagax dhigii dhismaha biyo xidheenka webiga Abay mas'uuliin ay kamid ahaayeen maayarka maamulka magaalada Jigjiga mudane Cabdirasaaq Saxane iyo sidoo kale wasiirada xafiiska arrimaha haweenka carruurta iyo dhalinyarada ee heer deegaan Marwe Raxma Suldaan Maxamuud Haybe iyadoo ay xuseen mas'uuliyiintani in Abay uu yahay furaha horumarka dalka loona baahan yahay sidii loo dhameystiri lahaa webiga Abay awal wuu mari jiray deemeesha waligii halka uu yaalay wuu mari jiray Ethiopia way soo jiri jirtay laakiin geesigii qaaliga ahaa ra'iisul wasaaraha qaaliga mudane Malla Zanaawi ayaa dhagax dhiga bilaabay dhigayna runtii Ethiopia oo dhan horumarka Ethiopia furahiisii weeye furaha marka horumarka Ethiopia waan bilownay inaan dhameystirnana waa la doonayaa runtii webigaas waa webi ballaaran xilligii horena kamayna faa'iideysanin laakiin hadda inaan ka faa'iideysano ayaan u diyaar garaysannahay iyadoo ognahay faa'iidada uu leeyahay biyo xidheenkani oo ah mid kaynu ku higsanayno inaan kaga noqono soo galno
wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay ayaan haddana maxaan ku raahday natiijo aad u weyn laga soo hoyay taasoo idin tusinaysa in mataqaanaa natiijaan ka gaarnay muddo yar kadibna aan gabagabayn doono waxaa sidoo kale isaguna ka hadlay munaasabadani gudoomiyaha maxkamadda shariicada islaamka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Nadiir Sayid Nuur oo ku hadlayay magaca culimada diinka deegaanka isagoo ballan qaaday in ay ka go'an tahay in ay si weyn uga qayb qaadan doonaan hirgelinta webiga Abaay sidaan ogsoonahay ka qayb qaadadka mashruucan waxa ku jira ihsaan ukhrawi ah iyo ku dunuwi ah labadaba kii dunuwiga waxa weeye wadankeena baa ku hormaraya oo ku hinqanaya oo dhaqaalaheena baa kobcaya oo حاجة وحوكية هي مصلحة دنويها حاجة دي آخرتنا عد كستاء وح بني آدم وحترتا أما وح نفلا وحترتا رسول كأنه يحول صلوات الله وسلامه عليه بير قوين وحي جار أردن وصدق أبو يري يعني أجر بالجيه لياه يعني وح من عدي ورابية وح مجد كجرا عدي نال الشداء وح يعني إسقارسين لعدي إسقارسين وسميسا wax alla wixii bani aadamka maslaxad u ah waa sadaqa weeyaan waxaan ku boorinaynaa boundiga hal la gato hal la qaato annaguna waa u horseedayna waan u horseednay wanakaas dhankiisa waxa isaguna ka hadlay munaasabadani garaad kulmiye garaad maxamuud dool oo xusay muhiimadda ay leedahay sanad guuradani afraad ee dhagax dhigii dhismaha biyo xidheenka webiga Abaay iyadoo gabagabadiina uu ku booriyay garaadku bulshada deegaanka sidii looga qayb qaadan lahaa dhamaystirka dhismaha mashruucan waxaan idinku boorinayaa in مدامو يهي حلقة أن هيكسانينو إنينو هرمرو إنينو ودمدو ورشدها له أينو كبيرو وحينو باهنا إنرجي أما تبر بينو باهنا تبرتها إن لهلنا وبيجا باي وحوكي هاي كو مركه هيكسيجنا ركومدا واوين وكتاجين هاي بكمدي هاي وبيجنا باي مركه شغالة شعب دولة إنه قعمها يسايسنا إنينو وبيجنا لما ينسينو باللونا يالله نجربها taasna waa mid aan idinku boorinayo sidoo kale intii ay socotay munaasabadani ayaa waxay iibsadeen mas'uuliyiinta iyo shaqaalihii ka soo qayb galay munaasabadani boondiga lacageed ee lagu taageerayay mashruuca webiga Abaay taasoo ay ku muujinayeen sida ay markasta hiil iyo hooba ula garab taagan yihiin taabagelinta mashruucan gabagabadii munaasabadani ayaa waxay dhankoodana si weyn u soo dhaweeyeen qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda iyo bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadan sanad guurada afraad ee ka soo wareegatay dhagax dhigii dhismaha biyo xidheenka webiga Abaay webiga Abaay sidaan ognahay waxa uu ugu fadhiyaa dalkeena Itoobiya qiimo aad iyo aad u ballaaran oo ah kii aan kaga bixi lahayn saboolnimada waxa weeyaan si aynu u hirgelinno dhammaan qorshayaasha dalkeena Itoobiya gaar ahaan webiga dib u curashada ee dalkan Itoobiya in aan ka shaqaale ahaan aan kaalinta aan ku leenahay aan ka qayb qaadanayno ما بدن برشادهون قلبي جام كبريهون